بريتو magaalada Garissa waxaa ka furmaya shir ay iskugu imaanayaan qaar ka mid ah barasaabyada laga soo doorto dalka Kenya xildhibaano iyo madax kale. Kulankan oo bari oo jamacada furmaya 3 maalmoodna socon doono ayaa waxyaabaha looga hadlayo waxa warbaahinta faahfaahin ka siiyay Maxamed Guuleed oo ah agaasimaha guud ee waaxda horumarinta gobolada waqooyi ee dalka Kenya. Insha Allah shirkan Belirto oo bari maalinta Jumcada taariikh 1 inuu bilaawdo subaxii hore dadkan waa dad xoolo dhaqataa marka cilado badan bay la kulmaan dhinaca maartay nabadgelyada dhinaca waqtiyaha abaaraha maartay dhulka la isku qabsado ama xuduudada la isku qabsado arimahaas inaan ka wada hadalno waxaan rabnaa hadana inaan maartay laga wada hadlo waxyaalaha hadda wadanka Kenya oo dhan dooda ka socota ama xiisada ka socota tusaale ahaan hadda codka ifka la qaadayo referendumka annaga iyo madaxda maxaanu ka qabnaa sideen maartay arintaas ooga hadlayna oo ka qayb qaadanayna dooda ka socota waxa wadankan ka dhici doona tirakoob ama census wax loo yaqaan taariikhda 24 marka bisha 8aad dadkeenu in la diyaar geliyo oo maartay macnaha ay leedahay in dadka la xisaabo inaan macnaheeda muujino iyo muhiimadda ay leedahay wadankan khayraadka waxa lagu kala qaybsadaa tirada dadkeenu marka hadii la xisaabi waayo ama tirakoobka ay ku jir waayaan sidaas ba anagana ma aragtay wixiina soo gaari lahaa oo dawladda dhaxay naga soo gaari lahaa horumar ha noqoto ama lacaga countiga loo qaybiyo ha noqoto waxa naga soo gaaraya khasaaro marka shirkan wuxuu ka hadli doonaa sida madaxda ay ugu gudbin lahaayeen wacyigelin ummadda oo dhulkeena degan iyo sida ay uga qayb qaadan lahaayeen ama guryooda ay ugu aruuri lahaayeen maalimaha la sameeyo tirakoobka waxaan ogsoonahay dad fara badan oo dhulkeena u dhashay marka waxaan ka filaynaa in madaxweyne ku xigeenka wadanka iyo madax kale fara badan oo dibadda ka imaada inay ka soo qayb galaan shirkan walajeedadiisa waxay tahay in la sukeeno madaxda oo laga wada hadlo oo laga xaajoodo waxyaalo badan oo khuseeya dadkeena waxaa kamid ah dadkeenu waa dad xoolo dhaqataa marka cilado badan bay la kulmaan dhinaca maartay nabadgelyada dhinaca waqtiyaha Bashir Ahmed Daqane Honkebol TV Garissa.